Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha badan meel kasta aad dunida ka joogtiin waa idin salaamay. Waa Shushu Xaaji Channel. Daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha badan maanta waxaa idin wadaa buskut simple ah oo gacantaada aad ku sameysanaysid oo wax yar oo fudud ah ka sameynay. Insha Allah waa isla arki doonaa sida u sameyno iyo qaabka uu noogu soo baxo. Halkaas waxaa iigu jiro waa kiilo bur ah. blue bana meeshaas ku heesanaa suba qofkii rabana uu isticmaali karaa 5 xabo ukun baking powder iyo 2 bakeeri oo sokor ah insha Allah sida u isticmaali doonana waa isla arki doonaa maasha Allah hadko waxa ku bilaaban doonaa insha Allah sokorteeni waa 2 bakeeri qiyaastii 2 bakeeri insha Allah sidoo kale waxaan ku darsan doonaa 5 xabo ukun ah daawadayaasheena qiimaha ay qaayaha badan aad iyo aad u mahadsantihiin sida subscribe-ka noogu saarteen insha Allah intaan iyo in la mid in ka badan ay idin rajeyneynaa insha Allah hadana 5 xabo ukun ku dhameysanay geedkaas ku qaseynaa gacantaada ku qasan kartaa wax mashiin ah isticmaali doono ma jiri doonto insha Allah wax yar oo simple ah waaye waxaan jeclahay inay iga faa'iidi doontiin insha Allah ka qurux badan ay sameey doontiin inta sokorti iyo ukunta la isku qasayaa markii cadaan uu noqdo oo sokorti iyo ukunti isdhex gasho insha Allah waxyaabaha kale aan ku darsan doonaa hadana maasha Allah subagii aan soo dhalaaliyay waaye blue band-kaas aan soo dhalaaliyay hal bakeeri oo blue band ah iyo hal bakeeri oo saliid ah aan isticmaalayaa qofkii subag rabana uu isticmaali karaa insha Allah waa wax yar oo simple ah basiid ah aan rajeynaa inaad ka faa'iidi doontiin insha Allah intaas si fiican aad isku dhex gelinaysaa maasha Allah si fiican aad isku dhex gelinay hadana waxa ku darsanayaa waa heel aan soo shiiday sidoo kale qaandada yarta ah teaspoon-ka ah oo afkeeda hore oo baking powder waaye intaas isku xagaajinayna insha Allah hadana waxa waa kiiladeeni burka aan ku darsan doonaa marka qayb aan ugu darsan doonaa insha Allah waa kiilo bur waa soo cabiray ani qofkii qiyaas rabana wuxuu noqon doonaa 8 bakeeri insha Allah qofkii kale tane waa cabiran karaa maasha Allah hada 4 bakeeri ku shubay 4 bakeeri ku qasayaa hadana inta kalena tartiib ugu soo dhameyn doonaa insha Allah kana hadana inta kale ku darsan doonaa maasha Allah haasa ku soo dhameyn intaan aadan isku qasaneynaa si fiican in aad isku dhex gelisid waaye wax kala bur ha ku darin ha moodin inuu jilcan yahay burka si fiican u qas si fiican la isku dhex geli wax kala bur kala ku dari doono ma jirto insha Allah intaas aan rabaa 1 kiilo ilaa 2 bakeeri oo subag ama saliid qof wuxuu haysto 2 bakeeri sokor insha Allah 5 xabo ukun intaas waaye uu ka kooban yahay buskutkeena maasha Allah taas oo noogu soo baxay insha Allah dhowr naqshada u sameyn doonaa naqshada koowaad insha Allah sidaan inoo noqon doontaa geedkaas ku hagaajin doonaa geedkaas ku jarjaran doonaa insha Allah si qurux badan oo hadhow kugu soo baxaa insha Allah xogaa yar soo qaadanaysaa meesha ku fidinaysaa kadib geedkaas ku jarjaraysaa geedka bardhada lagu jarjaro waaye qof basi uu isticmaalaa insha Allah insha Allah saasa ku soo wadi doonaa maasha Allah qurux oo ku soo baxaya hadhow buskutka markii la duwo insha Allah saasa ku soo wadi doonaa oo ku soo dhameyn doonaa naqshadaha kalena waa isla arki doonaa insha Allah daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha badan maasha Allah haasa ku soo dhameynay naqshadan korka waxa ugu kamarin doonaa insha Allah
ukun maasha allah saasa korka ugu marmarinaysaa ukunta kadib waxaa ku sameyn doono waa isla arki doonaa insha allah korkii waa kusoo marinay marka fargeetidaas aan isticmaalaynaa korka si oo calaamado oo qurux badan noogu soo baxo insha allah saasa kusoo dhameyneynaa haddana waa naqshadeennii labaad insha allah naqshadaas waxaa u isticmaali doonaa furka oo biyaha oo caafiga ah qofba siduu rabo qofba furkuu rabo ha u isticmaalo insha allah haddana maasha allah naqshadaas qurux noogu soo baxday insha allah naqshada saddexaad haddana idin tusi doonaa insha allah furka saliidaan soo qaatay is dhib maba jirabo maasha allah buskudkeeni waa kaya naqshadii hore saasay noogu soo baxday quruxdaas naqshadii labada naqshad dambana meeshaas yiri saasay noogu soo baxeen daawadayaashan qiimaha iyo qaayaha badan maasha allah buskud yaroo qurux badan makiinada u isticmaalin gacantaada ku samaysatay waaye waxaan jeclahay inaad ka faa'iidi doontiin inta fiidiyoo dambe ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye